aadaan ugu faraxsanahay xafladan bilaaran oo dhalinyaro juhdi iyo aqli iyo waqti gelisay farsamo adduunka iyo caalamka oo wax u taraayo nafsiyan iyo beelaha jirarweyn ay ka dhashay wax u taraayo taas waxaan dhihi lahaa guul weyn waaye waxa kalan aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhammaan salaadiinta bariga Afrika ayagoo na tixgeliyay wicitaanka aan u wacnay oo na tixgeliyay dhalinyaradooda Soomaaliya oo na kamid ah beelaha jirarweyne oo aad iyo aad ay u garab istaageen ay nagu dhiirigeliyeen inay yihiin dhalinyaro xoog furan oo shaqeysto oo yacni weligoodii uma aragtay oo hore u socon jiray runtii taas waxay noo noqotay guul weyn oo anaga aad iyo aad ugu faraxno mid xigto waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu ka hadlaayay rasaqa qofka inuu raasado uu shaqeysto فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلهي ولوكها الله إن رزق الله راسله رنتي وحي كميتايتن معنا أمرك إلهي لقاته صورته يتاهي خفك بن آدم كرسولك صلى الله عليه وسلم إنو شقيستو فري شقدنا وحوى درجوين ويتن وحي كميتاهي وحيابها لقاء أمانو لأن يرد بيلها جريروين inay yihiin kuwa shaqeysto runtii tusaalo caalamkan way u tahay maanta salaadiintana way u qeyreen oo bariga Afrika maanta xaadir ku ah goobtaan inay maartay ka soo qayb galeen waxa weey nabi ilaahi daawud sallallahu alayhi wa sallam wixii gacantiisa asku shaqeysta soconi jiray nabi ilaahi zakariya wuxuu ahaa maartay geedku qora lacagti aska shaqeysta soconi jiray nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam asagana wuxuu ahaa ari ayuu daadin jiray nabi ilaahi muusa sallallahu alayhi wa sallam si loo ogyahay 10 sano ayuu shaqeynayay wuxuu u shaqeynayay inuu cunto cuno iyo naag lagu daro anigoo ah suldaankoodii beelaha jirarweyne oo ku faraxsanahay gabdhaha quruxda badan aad iyo aad u soo dhaweynaa shaxda iyo qaabkii furxadda ay maartay si fiican ay u sameeyeen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh